xildhibaanadu aad bay u hadleen Soomaaliyeed oo dhanna way wada hadashay meel kasta la joogaba cid kasta oo aragta si qaldan in wax loo wado waa la wada hadlay dhibaatada hadda uu ka sameeyay laga sameeyay gobolka Gado runtii waxa ka sheekeeyay xildhibaanka ay dushiisa ka dhacday inay dadkii wax baranaya iskuulaad jirin caafimaad jirin biyo jirin guri jirin hooy jirin dadkii ilaa hadda meel ay jiraan aan war loo hayno cid hadda ka sheekeyn karta dadkii badaxa wadaganaa iyo doolow cid ka sheekeyn karta hadda maanta meel koog ayna jirin ay qaxooti ay noqdeen dadkaas oo muddo dheer ugu dambeysay xabadda shooda ka dhacda dhowr ilaa 10 sano ka hor waa wuxuu u geystay ninka maanta hogaaminaya Soomaaliya runtii waa dhibaato inteeda leeg waa dhibaato aad u weyn waayo dadka cadow kale dawladda kale ku soo duuleen ma qabanin ama qabsanin cadowgii kale Soomaalida Soomaaliya la daala dhacaysay al-shabaab ma qabsanin oo dhowr ilaa 20 sano ka hor baa laga xoreeyay waxa qabsaday ee ku soo duulay waa ninka maanta fil Soomaaliya fadhiya cid kale ma aha waa nasiib darro markay u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed oo uga tacsiidinayo qof kastaba runtii dhibaatada ay gaadhay aan uga tacsiidinayo sababtoo meel ka sareyso hadda loo kici karo ma laha laakiin hal baan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan weydiiyo aniga hadda xildhibaan baan ahay maxaan xildhibaan ku noqday dastuurkaasaan ku noqday hooyaday ima bixin xildhibaan aabahay iguma walqalin adeerkay ima dhihin waxaan ku noqday oo isiiyay waa dastuurkaas ka federaalka iyo ka dawlad goboleedka Jubbaland haddaan diido maxaan noqoni dastuurkii nooca haddaan diido maxaan noqonayaa waxaan noqonayaa qof iska hadlay oo kaliya iska joogo dadka caadiga kamida magaci ma yeelanayo waana shay sharci oo dastuuri ah qofka hadduu diido wixii lagu doortay inuusan noqonaynin xilka uu sheeganayo inuusan noqonaynin banaanka noqonayo oo xilka uu sheeganayo uusan noqonaynin haddaan diido dastuurkii laygu doortay xildhibaan ma noqonayo waa qodob dastuuri ah awd baan ka ahay cid kasta oo madaxweyne sheegata ama wixii sheegtana waa saas oo kale marka waxaan leeyahay lagu soo noqdo ummadda Soomaaliyeed dib inta isku timaado waxaan leeyahay ka tashato qodobka asaga qofkan la doortay maxaa lagu doortay dastuur wuu diiday maxaa bedelkiisa oo qaadanaa xaqiiqiyan la noqdo hadana xaqiiqiyan taasiyada qodobka labaad ee kale taan raba inaan ka hadlo waxa waaye khalkhalgelinta amniga ka jira maanta waxaan weydiinayaa ummadda Soomaaliyeed baa weydiinayaa xildhibaanada sharafta leh iyo gudoonkaba balay xaawo iyo afgooye yaa xamar u dhow magaalada Muqdisho yaa u dhow uma dhawa balay xaawo u dhow madaxweynuhu balay xaawo amnigeedu sugu hayaa afgooye wadadii laga dhisahayayna way istaagtay isbaad markayseen daraato taliyihii booliska in la dilay saldhigga afgooye waad arkayseen SYL oo ka soo horjeeda in la galayo maxana afgooye 30 kilomitir bay meelaha jirtaa kilomitir 0 hadii laga mitri hadii laga qaade madaxtooyada hadii laga qaadana way uga dhowdahay afgooye SYL oo ka soo horjeeda ayay shabaab galayaan sayidkay galayaan intaas waxa uga dhow balay xaawo iyo doolow saddex degme daawo iyo gobolka Gado dhan iyo kismaayadan aan joognaa uga dhow xafiiska oo fadhiyo waxa uga dhow afgooye balay xaawo waa sheekada khiyaaliga farmaajo oo wada hadda waa xaqiiqiyan oo waa sheekada riyada qofku hadduu seexdo riyooda laakiin qof taagan oo riyoonaya wali hadda ka hor lama arag waa sheekada filimka ee Soomaaliya laga galhayo la tusayo waa sheekada dadka Facebook la siin hayo lagu kharash gareynhayo social media ay wadaan amnigi balay xaawo waa la sugay SYL waa la sugi leeyahay afgooyena waa la sugi leeyahay wadada weydeen aynu dhisahayay kambanigu dhisahayay way istaagtay waxay istaagtay shabaab laga qaylin waayay su'aal kale aan idin weydiinayaa xildhibaano shabaab maxaan isku diidnay horta shabaab waxaan isku diidnay fikirkayga raac oo waxa aan watayeel oo waxaan aaminsanahay ila aaminsano oo dadka qallo oo dadka dillo oo wax dhacno oo wax barakicino wax gubno oo wax dillo oo ruux kasta oo bini aadmo ilaahay abuurtay gaal iyo islaam baa dillo oo dhiiga dad walba banaysanaan isku diidnay ma yeelaynaa nidi wayna la ciloobeen xabad bay nagu bilaabeen waayahay haddaan dhahno miyaa idin dili lahayn oo raaciyo u noqono inama dileen waan badbaadi lahayn
ummadda Soomaaliyeed markay aragtay beesha caalamka markii la arkay fikirka qaldanay nimanka ku socon yaa la argagixiso dawladda maxaa ku tilmaanaa marka hadda filla Soomaaliya maanta maxaa ku tilmaanaa bal meesha ay kartaa waxa ku tilmaano waxaan ku tilmaamaynaa argagixiso ma dhahayna waa dawlad waa argagixiso cid kasta ku dilaysa ku barakicinaysa ku qixinaysa xabad kula dhacayso naftaada aadan oga amaan helaynin waa argagixiso waayo fikirkayga raac waay fikir qaldan oo Soomaaliya ka soo jeedana ma raacayno maxaa dalkan loo weerarayaa hadda gada loo weeraray waa iraaca waa xoog qof binaadam shaab haday xoog dad yeelahayo oo Soomaaliya yeelaysa shaab la yeeli lahaa haddii la yeelahayo guumaysigii waddanka haystay lagama xoreeyeen Soomaaliya ama ummadda bini'aadmiga ma yeesho xoog wax la dhaho bini'aadmigu ma yeelo laakiin muxuu wax yeelaa walaalow iyo soo fadhiisiyo aan wax wada tashanay aan wax wadaano iyo dadka qofka bini'aadmiga buu wax ku noqdaa laguna dhageystaa waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay anigu ma kala sokeeyaan waxaan leeyahay beesha caalamkuna ha u fiirsato waxa ka socda Soomaaliya aanu soo noqdo shalayto dadka Soomaaliyeed markuu farmaajo xilka qabanayay waxa lagu kaambeyn gareeyay Ethiopia waa cadawga Soomaaliyeed Ethiopia dawladda la dhaho waa cadawga Soomaaliyeed Ethiopia naga xoreynaya Ethiopia baabiinayna maantana maxay noqotay meesha kartaa waxay tahay maanta waa walaalaheena Soomaaliya waay awal hore walaalo way ahayda soo kama dhigin ogow cadawna wal hormay ahayna waxay maanta tahay bay tahay Ethiopia isoo bedelan waa Ethiopia waa hal dalku waa mid dadkuna waa mid maanta maxaa la leeyahay waa cadawga Soomaaliyeed waxa la leeyahay Kenya saas ma Kenya waxay tahay maanta cadawga Soomaaliyeed ee nin walba arkayo ee la leeyahay cadawga Soomaaliya waa Kenya la leeyahay Soomaaliya markii la qaxay 90gii ilaa abto noo on joogno dadkii Soomaaliya xagee degan yihiin Kenya degan yihiin xiriyaha waaweyn baa Kenya ku yaal waa dawladda kaliya ee garab siisay ummadda Soomaaliyeed waa dawladda kaliya hooy siisay ee dalkii amni gelisay xoolahoodii iyo naftoodiiba tusaale islii waa ganacsiga ugu weyn Afrika aan dhihi karaa East Africa waa ganacsiga ugu weyn anoo Afrikada kale tooro laakiin East Africa waa ganacsiga ugu weyn waay yaa iska ganacsiga Soomaali baa iska le malaha Kenyaan ugu dadkii reer Kenyaanka ama madow ha noqdo ama Soomaalida joogtay ha noqdee midna kuma leh dad Soomaaliyeed baa leh waa dadkii hadda tagay filooyinka arteen bay ku leeyihiin ganacsiga arteen bay ku leeyihiin waa dadka Soomaaliyeed baa iska le islii ganacsiga ku yaala dadka Soomaaliyeed baa iska le ma laga dhacin karaa marka ama ma laga dhacin karaa ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed jooga meel kasta waxa ku noolaada baadiyaha ku nool baadiyaha ku noolaado ama islii baa looga soo diraa Kenya looga soo diraa beelka ama waxa looga diraa dadkii Kenya ka baxay ee Mareykanka aaday dawladda labaad ee Soomaaliya wuxuu qabatay waa dawladda Mareykanka oo dadkii qaaday badana oo xeriyooyin dhan sida kuma kale xero dhan bay xidhaa reerkiis tagtay tir la qaado ayaan cid u baadinin ayaan madow iyo cadin kala saaraynin ayaan luuqadii ajnabi iyo qolama tayaan dhahaynin bay qaaday oo dalkeedii geysay qof Soomaaliyeed oo biil laga siininna mayna jirin maanta dadkii sida ahaaba waxa leena leeyahay dawladda Kenya waxa leena leeyahay waa cadawgii Soomaaliya xafiisyada dawladda federaalka ama maamul goboleedyada ka shaqeeya dadka ka shaqeeya xafiisyada ka shaqeeya dadkii Kenya wax ku soo bartay dadkii gudaha wax ku bartay qarax baa leen hayaba waa run way jiraan dad wadaniyan waligood ka dhaceen way jiraan waxa Soomaaliya laga galayaa marka dadkii Soomaaliyeed Kenya cadawgeena oo taniya hadda la degan yahay oo ganacsiga ugu weyn Afrika oo ku yaalo oo Soomaali leedahay ajaanibka la lahayn oo madowga Kenya la lahayn dadkii reer Kenya ee deganaana ayna lahayn waxa la naga dhacinayaa Kenya waa col waa sheeko khiyaali shalna maxaa colahayd halka taagneed Ethiopia taagneed maantana waa riyada beenta la leeyahay Kenya haddana cola waa sheekada beenta qiyaaliga farmaajo kooxiisa ay wado inta markaan ka hadalno waxaan u soo noqonayaa qofku horta hadduu jin ku dhaco maxaa lagu daaweeyaa Soomaaliyeed jin baa ku dhacay qofkii maxaa daawadiisa yahay quraan baa la saaraa Soomaa dawladdan wax walba dhan baa lagula hadlay beesha caalamka la hadashay Soomaali baa la hadashay quraankeeda raba maanta halkan aan ka sheegno waxay taqaana ay ku bogsoon in la sheegaa la rabaa
dadkaan rabnaa inaan u sheegno wuxuu yahay dastuurkaasaa lagu doortay farmaajo hadduu diiday oo dastuurkaasaan axmed maxamed islaam ku dooranay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu yidhi ma aqoonsani dee annana ma aqoonsanayno waxaan ku doorannay kaa weeye waxaan ku doorannay aan ku wada hadallay ee labaduba xaqa uu leeyahay siinhaya waa midkaa hadduu diiday oo yidhi anigu ma aqoonsani dee asna yaa aqoonsan ilan hooyadii magacaa ma bixinini yaa aqoonsan dastuurkaasaa labadooda xaqa ay leeyahay siinaya hadduu dhaho maahi baarlamaanka aniga riyaaq baan ahay xildhibaan riyaaq baan ahay magaca aan leeyahay ma diida hadduu yidhahdo dee maayad quraan ay igu soo degtay maayad quraan ay igu soo degtay adeer inaan dhahnaada madaxweyne ahay oon durbaanada garaacno iguma soo degina waxaan u leenahay waa dastuurkaas soomaaliya ummadda soomaaliyed ku heshiisay hadduu diido waxaanu baraynaa wuxuu yahay farmaajo unbu noqon hadduu madaxweyne axmed maxamed islaam oo dhihi waayo waa madaxweyne oo su aqoonsan waayo asna ooma aqoonsanayno waa xaqiiqda taalla farmaajo dawadiisu waa middaa farmaajo dawadiisa deg dega waa middaa marka aan u soo noqdo jubbaland xildhibaanna waan u dhaarannay waa 3 gobol waxaan ugu dhaarannay ina aanu dadkeeda iyo dalkeeda iyo xuduudaheeda iyo daryeelkeedaba aan ilaalinayna kitaab quraan u marray haddaan u marray waa lagu soo duuray ciidamadii loogu talagalay aan sheegahayee afgooye iyo xamar loo marlaayahay baa waxaa la keenay la qabsaday jubbaland maanta badbaaday u baahan tahay badbaado degdegay u baahan tahay jubbaland badbaado dastuurkeenna inoo ogol yahay u baahan tahay oon ku darsanayno innagu aan nahay qoladii xeer dejiyaasha aan nahay oo gacanteenna midig ku jira inaan kala bakhaylada maaha jubbaland waxay u baahan tahay maanta badbaado dal iyo dadba waxay u baahan tahay badbaado innagayna gacanteenna ku jirtaa waxaan qabaa berri oo waraysa guddoomiye inaanu soo qaranno xildhibaanaha aanu keenno qodobka ayakatashiga jubbaland aana ku daro dastuurka jawaabteedana iyadoo aan dhammaanin doodan socotoon dhammaanin jawaabteeda inagu habboonna aan ka soo baxno waa laa shaka anu taasaan aaminsanahay jubbaland ayakatashiga jubbaland waa muqadas ayakatashiga badbaadada jubbaland waa muqadas waan u dhaarannay innaga xil laga saaran yahay waa muqadas wax aan cid weydiinayno ama aan cid oga daba fadhina ma aha ta labaad qodobkayga kale aan kusoo gabagabaynayo wuxuu yahay qodobka waxaa waaye waxaa maqan oo la qabsaday degmooyin waxaan ka rabnaa madaxweyne axmed maxamed islaam iyo xukuumadda gacanta si degdega in loogu soo celiyo degmooyinka cadowgu qabsaday degmooyinka lagu soo duulay ee la qabsaday gacmanta dowladda in si degdega loogu soo celiyaan asaga ka rabnaa inaan saacado u qabanayno iyo inaan maalmo u qabanayno innaga ka tashanayna haddii la yidhahdo waa doodeenna dambay noqonaysaa haddii ilahay nafteeda gaarsiiyo waxaan rabaa guddoomiye axmed maxamed islaam inuu gacanta iyo dowladda xukuumadda ay ku soo celiso degmooyinkaa la qabsaday in gacanta dowladda jubbaland lagu soo celiyo ugu dambayn baaq waxaan u dirayaa dadka reer jubbaland waa la qabsaday dadka qabsadayna waa dad soomaaliyeed oo ku soo duulay cadowgii aan la dagaalaynay iyo ciidamadii aan la dagaalaynay rabnay gobolka inaan ku xorayno jubbada dhexe maanta xaggee joogaan baled xawa korkiisay joogaan waa la leexiyey waddadii shabaab aan kula taxadarayn aan ku soconnay baa la leexiyey waa markaad isla hayso shabaab iyo nimankan waxbaa ka dhexeeya mar kasta oo la yidhahdo shabaab ha la iska celiyo dhinac bay u kacayaan meel kale kaa soo gelayaan waxaan qabaa u dirahaya dadka reer jubbaland rag iyo dumar waayeel iyo dhallinyaro in la qorto in la badbaadiyo dadkan ciidamadana la qorto si degdegana dalka gacanta dowladda loogu soo celiyo cadowgana aan oga saaro gedo iyo jubbada dhexaba gacanta dowladda lagu soo celiyo insha allahu tacaala muddo dhow intaasaan kusoo gabagabaynayaa way badan tahay sheekadaan soo qortay oo waxaa ku jira dee madaxweyneyaasha hadda la godoomiyeen hadda arkaya in meelahan lagu godoomiyey marka khayr badan baan idin rajeynaya wassalamu calaykum warahmatullahi